daaqa yuu bixiyey dhulbahantuuna waxay moodaa dhul ayan lahayn inay sheegtaan oo haddii lacag la siiyo lacagtooda uga faa'iida roonta uga macaan tahay sidaa daraaddeed lacag intaa ka badan buu bixiyey oo dhulbahante siiyey dhulbahantii foodkiisiiso puntlandkii kale waa siisay laakiin dhulbahante foodkiisi waa waayay dabeedna waa ka dhacayaa lacag bay nin walba $5,000 baa waa lagu yiri qaado محمد عبد الحاج هذا سؤال لو انت تقول له قيبه يقول لي انت كاهي بين كحيين كبنتلان انت كاهي رجل مرنا له كحيين بهاي انت دولة عبد الله يوسف الله يبارك كنا بالله يقول سبعه حق واختار له تعاون قبل الرسول السنه دي عين انت تلاقي هذه الشيء شيء هو إذا يعني مركز كجستين كان وين ماشي تشوفي أول ما توينا بسجاد هذا من توينا هذه وحنو بسوي إيران حقله وإساق هيكون تجعلمين ليش اللي جاهو يقول إيه توضح يصلى صحانات وأنه كذا كامل واللي إذا من حديثه كقبصني وأن إليه يهيدا ولا سندا مو بسمي استغرب مركز درادي يقول سيرة كبجة لكن نرى الله مركي عبد الله يوسف تنبئه وقفصني صوماليا إذا كيسا قالت لي وهي الحاجة الناشتين لا يسايا خاطي مركي إذا كينا اللي قلت لي الحاجة كينا خاطي إذا كاسوا باي فما وحيكون لماطي أنا قوض عيو بطلانو مركا يدنا لقى قفصني سنة لله الوضع كنت أنا محمد عبد الحاشي والوصف عن نعرفي على عبدالله يقول اللي قصري عبد الله وحمد الله تعالى بنت الله أنا واحد الله حيث طلبي يقول مياري إنه خط الشعب فقال الله محل كلاطعي محل كلاطعي حالة ما أنت ضيفي ومقايها بنت الله الوحيد مشغول قطعي وحيالك كانت حالة ما أنت تاجر محل هذه كلاطعي كون لا صعود يبدو أن تقول كي سبقا طبعا تاكل طورتو إنه العقل له شقاته هي يوجد نقطة أنت اللي هو البطوش اللي أوقاتوك كلي إيجي يوصل نير كلي إيجي لا صعود ناهي صار لك الميسو ربعين تيسكالي ممكن سيدي تتكلم والله قصنا يا والله قادم طور وفيصل عيسى oo ka tirsan Radio Boston Maxamed Cabdi Xaashi madax meel ka sarreeyo la saraxa ma jirto markii Puntland la sameeyay hadii aad ahaydeen odayaashii wax ka sameeyay ama joogay su'aasha la isweydiiyay waxay tahay maxaa keenay mar walba in dadka sool sanaag ay noqdaan number 2 maxaa keenay ma dastuurka Puntland baa sidaa qaba halka ku yeeriya dadka ka yimaada sool iyo sanaag iyo cayn mar walba waxay haystaan oo galaan jagada labaad sida madaxweyne ku xigeenka marka arintaasi ma arin dastuurka Puntland uu qaba maxaase arinta keenay hadii aad noo cadeyso waxa keenay simbali goobahanta lacag buu doonayaa goobannimo dooni maayo markii kaliya qofkii kaliya haya yiri madaxweynenimadu mar dambe lahayn maayo goobahantana markii saa qabtay markii ay soo tuwina وتدور الربان عاوية وهي العقل عبد الله يوسف صوب وخاطي هذا عبد عشان والله مركز الربان هذه جر عاد كساقجانك وهو على العقل دنيا قبل ما تدوري قبل ما تدوري maxamed cabdi xaashiyeen waxaad ogson tahay in sida loo qaybsaday xubnaha baarlamaanku ay tahay beelaha waqooyiga bari ayaad moodaa inay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ay qaataan iyo wax ka badan marka la isku soo wada daro dhammaan beelaha kale oo dhan arrintaasi miyay suurto gelinaysaa in dad ka tirsan siyaasiyiin ka tirsan beelaha kale ay marna madaxweynenimada ku soo baxaan iyadoo arrintaasi ay jirto gulbahaanta wuxuu leeyahay 7 kursi buu leeyahay 7 kursi gulbahaanta hadday midaysan yihiin oo ayan hunguri raax ahayn waxaan balla ku qaadayaa gulbahaanta 7 kiisaas ku heli karaya madaxweyne
qaaliga haddaan halkaa kasii wadno waxaa la sameeyey waxaa ka dhacay shir weyn magaalada buuro wadan dhammaan istimada isugu yimaadeen waxaa la sameeyey khusuusi waxaa ku wareeyey